oo uu soo agaasimay komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa loo qabtay xubno ka kala socday xafiisyada heer deegaan isagoo tababarkaasina ka qabsoomay magaalada Jigjiga. tababarkani oo uu soo agaasimay komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay ahmiyadiisu ahayd sidii fahan dheeraad ah looga qaadan lahaa nidaamka la dagaalanka musuqa isla markaasina loo hiigsan lahaa kamiro dhalinta horumarada kala duwan ee deegaanka Soomaalida ka hana qaaday sidoo kale tababarkani ayaa waxa looga gon lahaa sidii fahan buuxa looga yeelan lahaa shuruucda lagu la dagaalamo musuqa waxana tababarkani loo qabtay gadwadeenada geedi socodka xafiisyada heer deegaan oo ay kamid ahayeen geedi socodka maamulka lacagta saadka iyo iibka geedi socodka qorsheynta geedi socodka hanti dhowrka gudaha iyo waliba guud ahaan lacag hayaha xafiisyada heer deegaan tababarkani oo ka soo qayb galay mas'uuliin oo kamid ahaa komishineerka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ugu horeyntii furitaankii tababarkani ka hadlay komishineerka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamuud Cabduqaadir Maxamuud oo sheegay in tababarkani uu ku qatamo kadib markii komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida uu daraasad muddo badan qaadatay uu ku soo sameeyay geedi socodyadan xafiisyada heer deegaan taasina uu tilmaamay in laga maarmaan ay noqotay in tababar loo qabto gadwadeenada geedi socodyada xafiisyada heer deegaan si markaasi ayuu yiri looga digtoonaado musuqa iyo waliba anshax darrada sababi karta in uu dib u dhac keeno tababarkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay sidii aan fahan dheeraad ah uga qaadan lahayn nidaamka la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan kaloo fahan dheeraad ah aan ka qaadanaynaa shuruucda iyo sharciyada lagu la dagaalamo musuqmaasuqa nidaamka diiwaangelinta hantida yaa laga bilaabay see loo diiwaangelinayaa qaabkeenu soconaynaa iyo waliba iibka weyn waa ilaa iyo 4 casharo muhiim ah ayaan idinku soo diyaarinay meesha marka waxaan leenahay inaad ka qayb qaadataan isla markaana aad dhageystaan fahan fiican aad ka qaataan komishineerka komishinka anshax iyo la dagaalanka musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamuud Cabduqaadir Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu kula dardaarmay xubnihii tababarkani qaadanayay inay ka soo dhalaalaan waajibaadkooda shaqo isla markaasina ay noqdaan hormuudkii la dagaalami lahaa musuqa iyo waliba anshax darrada ugu dambeyntii tababarkani oo qaadan doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxa la filayaa in xubnahani tababarka qaadanaya ay wax weyn doonaan sharciyada lagu